شايب محمد عبد الله فرماجة عليه فرماجة وكسينو أنت فرماجة في عم تقينين فيري فرماجة مركو بين شيء جاي مارك توش شيء وهي محي ربان مرك مويديس وويدير وحي ربان وحكم إذا قديها حنتي سؤالين تقول قدره أيقو معمولان إني كشقيان السود وانشاه شعبك هي دولة إني دم يستركوا سميان وح الله وحي هشيسي هرو جري مركو بين شيء الله مارك وش شيء أولي عذر ولا كفتك ورقضوا بصوت تابكوا بين شيء لكن شايف فرماجو معناه وحى إني حراس جرين سحني نما وعلى دم 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 شلو أقول هذا أنت بترولك مكان صور نقد مرك أنت بترولك سيسمك يا لسمية داتا الأرورية دولتي تنكور رئيسي يا أبور يا داتا ناس إمحان كره هذا كمبني كوسيسي كمبني داتا دي وها يا داتا ده محل وسمعنا يا مرك إلا إن ذلك وحال يري potential وحجري كره أو صورة قلعة إنه ذلك ليه هي شيدان داتا نوالا هيا داتا دي مركب مسكحين إنها مركب داتا دي ما هين إنه داتا ده وين صوب بندقنه الله سهميه واحد داتا ده شيء جيسو إنه سحته ينكله شلو أقول هذا في عنا فرماجة أو معنا وعوي وركيز الشيء بينكم مجد هذا ملا قار يوصل إلا هير مدحوين نمو هدن لكن منها وحرونه هيستو اسكو كلسونيو دبعاينو نمكا كقاتو جانس iyo ku faan laayeen iyo asagu faanay jaanis ku qaatay marka maadaama ogaaday inaysan meesha been aysan jirin oo waxa ay saxaraas jirin oo nimanka odayaasha jamalka ay noo tuureen ugu wareeriyeen oo san wax jira ahayn shalay si sax ah oo Allah xaynimo oo kartida qodbadiisa waa fiinay laakiin odaga maanta beeshiga warqada ku soo qoranaa waa shishiga fahmt شلا شيء مجرين. dadka qeylinaya marka qaar waa siyaasiyiinta xanaaqsan wax kala maaha waxay rabaan dib u dhac inuu dalku ku yimaado sidii 2000 laga bilaabo ilaa hadda ay uga shaqeynayeen dalku inuu dib u dhac ugu yimaado daatada in la soo bandhigo oo dadka interestiga ku ah ama xiiseenaya inay arkaan daatadii oo ay qaataan daatadii ay baaraan haddaba waxaan idiin sheegayaa hadda haddaan la bilaabin waxa weeye in productionkaas wax soo saarkaas uu dib u dhaco yaa xaqiiqo noqonaysa haddase haddaan bilowno haddii la manaafacsado oo sida ay tahay lagu socdo 10 sano yaa batrool soo bixi karaa hadduu dalkan batrool leeyahay marka 20 sano ma sugi karnaa marka macnaha waxa weeye laba nin oo siyaasi ah yaa qayliyey oo dadkii qashimeeyay oo been u sheegay haddaan sugno 20 sano ma sugi karnaa marka haddii aan dhageysano ninkaas weligiis ka qaylinayay haddaan sugno 20 sano ma sugi karno ummadeenna baahi iyo u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsano wixii aan haysanno ummadeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas wax kale ma aha waa bandhig carweed weeye qofka wuxuu haysto waagii hore waxaa jiri jiray carwooyin yaa jiri jiray bandhig carweed waxaa la soo saari jiray dowladda wax soo saarkeeda iyo khayraadka dalka yaa la soo saari jiray oo lagu faani jiray caalamku waa imaanayaan waxay kaa qaadan karaan waa kaa qaadanayaan waxay ku karaan waa ku kordhinayaan dadka shacabkana waxay ogaanayaan waxa dowladda iyo dadku uu haysto waxa weeye waa bandhig carweed oo shiir haddii wax kale aan haynana waa soo bandhigaynaa waa ku faanaynaa midda kale oo muhiimka waxay tahay Soomaaliya waxaa lagu sheegaa wax negative ah wax aad u xun dadkan waa dad baahan dadkan waa dad isdila dadkan waa dad dhiigga maaragtay nafta aan qiimeen dadkan waa dad burcadbadeed leh dadkan waa dad maxaan ku raad dawlad nidaamsan oo sharci leh oo aan lahayn dawlad ma aha dawlad nidaamsan oo corrupt ah weeye intaasoo negative la sheegaa war maxaa noo diiday walaalayaalow inaan sheegno waxa kaliya aan haysano oo wanaag inaan ku faanno oo adduunka tusa war dalkan saad mudaan ma ahay dalkan khayraad u leeyahay ha loo dhawaado marka anagu ma waxaan ka shaqeynaynaa adduun
adduunka inuu noo soo dhawaadaan rabnaa shacabkeena dibadaha jira inuu noo soo dhawaadaan baan rabnaa annaga inaan isu dhawaanaan rabnaa haddee inaan tusno waxa aan hayno dalkeen uu leeyahay taasi waa arrin runtii muhiim ah oo loo baahan yahay in qof walba uu ku baraarugsanaado haddii wax kale ana shakhsi ah oo laga yaabo in laga fiiriyo waxaan idin caddeynayaa dowladdan anugu madaxweynahan ka ahay dowlad ganacsi maaha dowlad ganacsi maaha waa kala saarnaa waxaa la yidhaah ganacsi iyo public service shaqo qaran iyo ganacsi lisma dhexgelin karo anugu kama shaqayn karo ganacsi maxaa yeelay ummaddan iyo ammaanadooda ii dhiibtay astaan qaran iyo iga dhigtay waxaan ahay madaxweynihii qaranka waa inaan iyagu u shaqeeyo marka waa inaan ka shaqeeyo waxa dadka u wanaagsan waa inaan ammaanadooda ilaaliyo waa sidii aan maxaan ku yidhaahdaa barnaamijkeennu ahaa markii doorashadan ku jirnay ammaanada dadka soomaaliyeed noo dhiibteen inaan u ilaalino cadaaladana u ilaalino cadaaladana u sugno ummadda soomaaliyeedna aan ku baraarujinno inay yihiin dad wanaagsan inaan ku baraarujinno inay qabkoodii soo celiyaan inaan ku baraarujinno inay walaalo yihiin ee midnimada ku xoog badan yihiin walaalayaalow intaasaa aniga la ii doortay ganacsi la iima dooran inaan hebel wax u saxiixo inaan hebel wax ka helo qof alla qofkii dowladda u shaqeeyana hadduusan leenkaas qaadan waxaan kula talinayaa inuu ganacsi iska aado annagu waxaa naga go'an adduunka horumaray sida uu ku shaqeeyo oo aan caawimaadda ka raadinayno inaan ku shaqeyno waana inta diinteena na fartay weeye waa inta dhaqanka diinteena ina farayso inaan diinta iska sheegana ma aha waa inaan ku dhaqanno dhaqankeennu wuxuuna farayaa in musuqmaasuqa laga fogaado mushaharkaaga wax ka badan inaadan qaadan inaad dadka cadaalad u samayso qofna aadan soo dhawaysan qofna aadan fogeynin xaqa dadka inaad iska ilaaliso intaas weeye dalkaaga inaad difaacato dadka shisheeyaha ama dowladaha shisheeyahana si wanaagsan oo ixtiraam leh inaan ula macaamilno inaan ka ogolaanin quursi inaynan ka ogolaanin annagu intaasaan ku shaqaynaa intaasna waa inta diinteenna na farayso inta dhaqankeena soomaali oo awooyaasheena ku dhaqmi jireen aan ka barannay weeye waana dhaqankaas dhaqanka wanaagsan oo aan doonayno inaan soo celinno hadduu ilaahay taasaa keentay ninkaas odaygaa markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yidhi muqdisho soomaaliya maaha soomaaliyana muqdisho ma aha arrintaas arrin aan ka caroonnay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa runtii differenciga farqiga u dhexeeya dowladda dhexe ama dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabeynaya taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga in nalaga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno kow annagaan iska bilaawno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yidhahda mooshin oo qayb ka mid ah khilaafaadkan haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda soomaaliyeed argagax geliyey annagoo dhannaan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay oo aan ka soo gudubnay oo siday anigu aan sheegayo ahayd annaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walbaba oo dhexdeena yaalla kaftanka waa tanaa marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiye waa kaftameennaa waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see waxay yihiin markaasuu yidhi waa ay hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi ma qabyadaan isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri
hadduu mooshinka dhan yahay in kale. dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018. waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa. wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi. waxaan ku yidhi khalad kalma ku jiraa. waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan ay meesha ku jirteen. waa fiiriyey wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii. oo waxaan ku yidhi see dateska qofku uu ku iloobay hadduu qofka seexay see ku iloobay waktiga uu seexay. waxaan ku yidhi haye maxaa kaloo ku jira. wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan. waxaan ku yidhi marka waa yahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motifku muxuu yahay maxaa laga dan leeyahay waxaan ila waaba sheegtay waa qabye. wuxuu yidhi hore wuxuu yidhaahdeen qabyo ninkeedaa dhammaystira. waxaan ku yidhi waa yahay waa dhabi qabyo ninkeedaa dhammaystiree taas 2016 soo ma ahayn. wuxuu yidhi maya waa 2019. waayahay maxay rabaan marka ma weydiis. waa weydiiyu yidhi waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan. inay ka shaqeeyaan isu soo dhowaanshaha shacabka iyo dowladda. inay dhammaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisyo hore u jiray. in maxaan ku dhahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhaweyd oo webiga kasoo fatahayay in la furo oo beerta loo daayo. waxay rabaan uu yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha. waxay rabaan uu yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta. tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yidhi inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.